nolosha waa la yaab. Innaba aan filanayn baan ruux jeclaanaa, weliba xilli aynaan filanayn, waqti aynaan filanayn, zaman aynaan filanayn, isla weliba qof aynaan filanayn waynu jeclaanaa. riyo qurux badan buu inoo abuuraa, nolosheena ayuu soo dhoweeyaa, dhammaan daaqadaha qalbigiisa ayuu inoo furaa. innagoo aan iska warhayn ayaan si fudud albaabada qalbigeena ugu furnaa. waqti kadib farxad ayay inoo abuuraan, xusuus ayay inoo abuuraan, himilo ayay inoo abuuraan, rajo ayay inoo abuuraan, hami ayay inoo abuuraan. nolosheena farxad ayaa kusoo biirta, nafteena oo dhan ayaan raacsiinaa, nolosheena oo dhan ayaan raacsiinaa, innagoo aan ka fakerayn waxa inooga iman karaya. qulubteena ayaan raacnaa, niyaddeena ayaan raacnaa, nafteena ayaan raacnaa. mustaqbal ayaa inoo ifaa, nolol ayaa inoo iftaa, farxad badan baynu dhex maquuranaa, aan kala joogsi lahayn, aan inoo muuqan inay tahay mid soo dhammaanaysa. balse waqti kadib innagoo aan haysan meel aynu ka soo noqono, meelaan dib uga noqono, meelaan hadda wax cusub ka bilowno, meelaan nolosha ka ambaqaadno, ayay nolosha hal mar iskeen beddeshaa. farxaddii murug baa beddesha, dhoola caddayntii fakar baa beddela, hurdadii hurdo la'aan baa beddesha, rajadii caloliyow baa beddela, niyaddii wanaagsaneyd ee mustaqbalkii madow aad u weyn baa koraa. nolosheena waxay dhabaha saartaa waddadii burburka, laakiin bini aadan ayaynu nahay, bini aadan keliya qulubtooda raacay. dhalaalka hore ee muuqda ku sirmay, naftooda iyo hawadooda raacay, aan marna ka fekerin waxa uga imaan doona, nolosha si ay isu beddeli doonto. innagoo aynaan qofka ka fiirsan ayaynu qalbigeena dhammaantiisa siinaa. taasna waxay noo noqotaa ciqaab aanu dib uga qoomamayno. noloshaan aan noolnahay sideedaba, dadka qaar waxaad moodaa inay noloshaada usoo galaan inay xasuus ku abuuraan, qaar inay noloshaada usoo galaan si cashara ku baraan, qaar inay noloshaada usoo galaan si ay u burburiyaan, qaarna inay noloshaada usoo galaan si ay farxaddaada kaaga hadaan. qofkii aad taqaanay maaha, noloshii aad taqaanay maaha. wax kasta indhahaaga hortooda ayay isku beddelayaan. awoodna uma lihid aad ku beddesho, ku istaajiso. qofkii shilay ku haleeli jiray oo maanta ku hareer maraya, noloshii macaanayd oo qalaalaatay.
laakiin waxaa xaqiiqa ah dadka qaarna xusuustooda iyo jacaylkooda ayaad nasiib u yeelataa, dadka qaarna mustaqbalkooda ayaad nasiib u yeelataa. noloshan adduunya sideeda waa iska imtixaan, waa daarul imtixaan loo keenay in bini'aadanka lagu imtixaano. noloshana mararka qaar waad u baahantay qof indhaha kuu fura, kala tuso dadka runta iyo dadka beenta ah, dadka ku jeceliya kuwa iska dhigaya inay ku jecelyihiin, kuwa noloshaada doonaya iyo kuwa aan doonayn. qof kastoo inaga mid ah oo riyada ay himiladaa soo maray wuu garan karaya hadda noloshiisu siday tahay, laakiin muhiimadda ayaa ah hadda qof kasta oo marxaladda ka soo gudbay inuu hadda waayo arkay, nolosha wax badan ka bartay, sax iyo xumaan kala bartay, wanaag iyo samaan kala bartay. runtii ma ilaabi karayno, noloshiinana baalbi kaga qorayiin, aan kama saxmayn. laakiin si kastay ahaato noloshan cidna uma joogsato, qofna nolosha ma sugayso, qofna uma istaagayso, waa mid sii soconaysa. qofkaas noloshaada ku jira ama yuusan ku jirin, waa mid noloshu sii soconaysa, hal second xitaa ku sugi mayso. keliya waxay nala gudboonay tahay inaan samaynaa, inaan cashar ka baranaa khaladaadkeena. noloshana inaynaan aaminin sabab la'aan, aynu ka fiirsanaa ficiladeena waxa ka dhalan doona, aynu ka fiirsanaa qalbigeena dadka aynu siinayno, aynu 100 jeer ka fiirsanaa. السلام عليكم.